waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin ku saabsan abaaraha soo noqnoqda ee ka dhaca dhulka ay Soomaalidu degto iyo sidii abaarahaas loo gaashaaman lahaa oo loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay abaaruhu geystaan. marka ugu horreyn waxaan rabaa inaan ka hadlo sababaha abaaraha keena, kadibna waxaan ku xigsiinayaa natiijada ka dhalata marka ay abaari dhacdo, iyo ugu dambeyn siyaabaha loo gaashaaman karo abaaraha oo markaas lagu yareyn karo dhibaatada ay abaaruhu geystaan. marka abaarta waxaa keena laba sababood. labadaas sababood mid waxaa mas'uul ka ah dadka iyo dunyada, midna waa sabab dabiici ah oo abaaraha dadka iyo dunyadu saameyn kuma laha, waxaa keenta cimilada oo xun. waxaan la soconnaa gobollada ay Soomaalidu degaan waxay ku yaalaan geeska Afrika. halkaas dhulka dabiicad ahaan waa dhul kulul, waxaana loo yaqaanaa dhul qalalan ama lama degaan xigeen ah. sababta ka dhigaysa dhulku inuu noqdo dhul lama degaan xigeen ah waxaa weeyaan biyaha roobka oo ku yar. sababta ay biyaha roobka u yaraadeenna waxaa weeye dhulka oo joogiisu aad u hooseeyo, taas oo keenaysa dhulku inuu aad u kulul yahay, iyo roob badan oo aan ka di'in dhulkaas sababtoo ah daruuraha roobka keena ee dhulkaas ku di'i lahaa marka ay soo gaadhaan gayiga Soomaalida ayaa dabaylahaasi ku yimaadaa cadaadis hoose, taas oo keenta inay dabaylihii qalalaan oo ay kala cararaan oo markaasna uu roob uusan di'in. waxaan ogsoonahay dhulka Soomaalida muddada sanadkii ah 3 bilood waxaa ka da'a roob aan badnayn, 3 bilood ayaa ku xiga oo qalalan, haddana 3 bilood oo roob leh ayaa ku xiga, haddana 3 bilood oo qalalan ayaa ku xiga. marka xilliyada ay roobku da'ayaan dhulka kama da'o roob badan oo dhulka wada qooya. marka haddii bilihii uu roobku di'i lahaa uu dib u dhac ku yimaado oo uu roobkii di'i waayo, markaas xoolaha waxay bilaabayaan in aysan helin doogii ama cawskii ama caleentii ay cuni lahaayeen ama biyihii ay cabbi lahaayeen. taasina waxa ay ku keentaa dhibaato. taas waxayna markaasi keenaysaa inay xoolihii macalulaan, markaasna ay caana yareeyaan. taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa dadka. marka haddii hal xilli roobka uu si fiican u di'i waayo, dhibaato ayaa la soo gudboonaanaysa bay-adii ay xooluhu ku noolaayeen, xoolihii, dadkii, beerihii, dhibaato ayaa la soo gudboonaanaysa. marka xilliga xiga ee abaarta ahaa ama qalalnaa waxaa dadku ay imanayaan iyaga oo aad u dhibaataysan oo aan roob iyo biyo helin xilligii roobanaa ee ay ahayd in dhulka ay biyo galaan, in dhirtu ay baxdo, in caws uu baxo. markaas haddii xilligii labaad ee markaas uu roob di'i lahaa uu roobkii iman waayo, markaasi waxaa bilaabanaysa abaar dhaba. waxaana markaasi bilaabanaysa xoolaha inay macaluul u dhammaadaan. marka xooluhu dhintaanna waxaa ku xigsanaya dadka ayaa ku xigsanaya. dadka qaybtiisa ugu jilicsan sida carruurta oo kale ayaa ku xigsanaya. waana markaas marka la yiraahdo meel hebla waxaa ka jirta abaar ama macaluul. waana marka aan daawano carruur iyo dad macaluulay oo dhibaataysan oo la ildaran gaajo iyo rafaad iyo haraad. waxaan soo sheegnay in abaaro soo noqnoqda ay ka dhacaan deegaamada ay Soomaalidu degto. waxaana la qiyaasaa abaarahaasi in ay soo noqnoqdaan 3 ama 4 sanaba hal mar. markaas dadku waxay ku qasban yihiin markay dhowr sano joogaanba in ay la kulmi doonaan xilli abaar ah ama abaar ku dhow. marka su-aashu waxaa weeye, mar haddii abaaruhu ay sidaas u jiri karayaan, maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed? suuragal ma tahay in abaaraha
la yareeyo? haa, waa suuragal. sababtoo ah waxaa jira xayawaano fara badan oo u diyaar garooba xilliyada abaaraha ah ama xilliyada ay barafyadu jiraan oo markaasi ay adag tahay inay noolaadaan haddaanay isu diyaarinin. marka innaga oo bini aadana oo ilaahay caqli na siiyey waa in aan qorshaynaa oo aan u diyaar garownaa sidii abaarahaasi dhibaatada ay geysanayaan aan u yarayn lahayn. run ahaantii abaaraha ma hor istaagi karno oo waa wax ilaahay keenay oo inagu ma joojin karno, laakiin inagu waxaan awoodnaa inaan yarayno dhibaatada ay geysanayaan. sababta ah markii dadkii loo diyaariyo, marka xoolihii loo diyaariyo, marka bay-addii loo diyaariyo xilliyada kulul ee abaaruhu ay jiraan oo markaasi wixii oo loo tababushaystay oo la qorsheeyey ay abaartii timaado, markaasi waxaa yaraanaysa dhibkii ay dadka iyo dunyada iyo xoolaha iyo dabiicadda iyo dhirta ay abaarta u geysanaysay baa meeshii ka baxaysa oo yaraanaysa. sidee marka lagu yarayn karaa marka dhibaatadaasi? dhowr siyaabood baa lagu yarayn karaa. sababaha marka dadka iyo dunyadu ay mas-uulka ka yihiin waxa weeye iyada oo goob gaar ah si ka baxsan awooddeeda loo isticmaalo oo markaasi goobtaas lagu sii daayo xoolo fara badan, ama ay isticmaalaan dad fara badan, ama deegaankii dhibaato loo geysto oo dhirtii dhulkaasi ku taallay la jaro, iyo iyada oo dhulka si ka baxsan awoodda dhulka loo beerto, iyada oo haba yaraate aan wax horumarin ah ama isbeddel ah lagu samaynaynin dhulka. haddaba marka goob gaar ah si xun loo isticmaalo, waxaa markaasi taasi ay keenaysaa in dhibaata ay soo gaadho qaabkii ay bay-addu u samaysnayd. marka goob si xun loo isticmaalo oo dadka iyo dunyadu ay ka tira bataan, markaasi waxaa qaadmaya qolofta sare ee dhulka, oo dhulku waxa uu leeyahay qolof sare oo labeen ah, halkaas oo badanaa nafaqooyinka dhirtu ay u baahan tahay ay ku jiraan. marka qoloftaas sare ayuu dhaawac gaadhayaa. qoloftaas sare marka uu dhaawac gaadhana waxaa dhulkaasi uu u nuglaanayaa in uu nabaad guur ku dhaco, sababtoo ah dhirtii baan ka baxaynin, cawskii baan ka baxaynin. dabadeedna dabaylaha ayaa si fudud u qaadi karaya inta hadhay ee qolofta. sidoo kalena marka uu roob da'o, roobkaasi waxa uu qaadayaa qoloftii labeenta ahayd ee dhulka. taasina waxa ay keenaysaa dhulku inuu waayo awooddiisii dabiiciga ahayd ee dhirtu ay uga bixi lahayd, oo markaasi uu ku xajisan lahaa biyaha iyo nafaqada ay dhirtu u baahan tahay. haddaba isticmaalka xaddhaafka ah ee dhulka la isticmaalayo iyadoo aan dib loo soo celinaynin waxyaabihii uu dhulka u baahnaa ayaa waxa ay keentaa nabaad guur. nabaad guurkuna waxa uu keenaa saxaarow. saxaarowguna waxa uu keenayaa dhulkii haba yaraate inaan la deganaan karaynin, oo markaas dhulka inuu waayo awooddii ay dadku ku noolaan lahaayeen. waxaa loo yaqaano carrying capacity, oo ah dhulka inuu waayo awooddii uu dadka iyo dunyada iyo dhirta ku siin lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin. taasina marka waxa weeye sababta ay dadka iyo dunyadu uga qayb qaataan in goob gaar ahi ay weydo awooddii ay lahayd ee dabiiciga ahayd. marka sideebaa marka waxa looga qaban karayaa abaaraha? abaaraha waxaa wax looga qaban karayaa dhowr siyood. kow, waxaan ogsoonahay dadka Soomaalida inay yihiin dad reer guuraa ah badankooda oo xoolo dhaqato ah. dadka beeralayda ahina inay yihiin dad beera yar oo aan tabar lahayn, oo ayaga uun ay ka helaan cunto iyo badar ay cunaan abuurta. marka waxaa loo baahan yahay in la isdhexgeliyo beeralayda iyo xoolo dhaqatada. markaas qoys waliba inuu noqdo xoolo dhaqato beeralay, sababtoo ah beerta waxaad ku abuurayso xoolihiibaa u baahan, oo marka aad badarka goosato balkiina xoolaha ayaa u baahan. sidoo kalena nolosha qofka ma kaafin karayso oo keli ah inuu beer yar tabcado, oo qofku markasta wuxuu u baahan yahay inuu beerta iyo xoolaha labadaba uu dhaqdo si markaasi qofka noloshiisu ay u noqoto mid degan. marka taas waxaa la yidhahdaa farm extension, oo ah in dhulkii la ballaariyo, in meel kastoo la abuuran karayo la abuurto.
taasi markaa waxay keenaysaa in nolosha dadku ay noqoto mid degan oo xasiloon oo markaasi ay dadku u tababushaysan karaan xilliyada abaaraha. guud ahaan dadka Soomaalida ah ma laha dhaqanka dhir abuurista. dadku waxay u haystaan in dhirtu una iska soo baxdo. adduunka saa lagama yaqaano. dhirta waa la abuuraa. dhirta waxaa loo abuuraa sida beerta loo abuuro, sida xoolaha loo dhaqdo. marka waxaa loo baahan yahay dadka intii isku deegaan ahba in ay kayn abuuraan. haddaanay abuuri karaynin in ay kayntaa xayndaabaan oo markaas ay yidhaahdaan kayntan 5 sano ama 10 sano lama isticmaali karayo. marka sida aad ku arki karaysid sawirkan, tallaabooyinka lagu yarayn karaayo dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah iyada oo xal loo helo haqabtirka biyaha. si haddaba dadku ay biyo u helaan, waxaa loo baahan yahay xilliyada ay roobabku da'aan in biyaha la kaydiyo oo biyaha la qabto. waxaa loo baahan yahay in dadku ay samaystaan warooyin, harooyin, biyo qabatino, ceelal iyo wixii lamid ah. marka waxaa loo baahan yahay biyaha roobka in la qabto. waxaana loo baahan yahay in togoga, laagaha, webiyada, durdurada inta la xidho oo biyo xidheen loo sameeyo, markaasi dadku biyahaasi ay u baxsadaan xilliga uusan roobku jirin. biyo xidheen in la dhisaa qaali ma aha. dadku waxa ay samaysan karayaan biyo xidheen dabiici ah oo gacan ku samays ah oo aan u baahnayn biyo xidheen shabiito iyo dhismayaal qaali iyo looma baahna. waxaa la samaynayaa carratuur. carratuurka marka la sameeyana biyuhu ma mari karayaan carratuurada. dabadeedna waxaa la samaynayaa harooyin, balliyo, meel biyuhu fadhiistaan. dabadeedna hadda waxaa ka cabbi kara dadka iyo xoolaha. sidoo kalena xataa waraabka waa lagu isticmaali karaa. waxaa kale oo loo baahan yahay in ceelal cusub la qodo oo dadka awoodooda ay isugu geeyaan, in inta ay dhaqaalahooda isu geeyaan oo ay rigag soo karaystaan ay ceelal cusub qotaan oo markaas ceelashaasna ay nidaam u sameeyaan, iyo in ceelashii horey u jiray la daryeelo oo loo sameeyo nidaam looga faa'iidaysanayo ceelashaas. arrinta kale waxaa weeye in dhulka loo sameeyo waxa loo yaqaano conservation. macnaha waxaa weeye in qayb dhulka ka mid ah la xayndaabo oo markaasi isticmaalkeeda dib loo dhigo, ama 4 sano kadib, ama 5 sano kadib, ama 6 sano kadib. marka dhulkaasi la xayndaabay oo la ooday, waxaa la isticmaalayaa xilliga kulaylaha ah ama xilliyada ay abaaruhu jiraan. oo dhulka marka la qoondeeyo oo loo qoondeeyo isticmaalka mustaqbalka, markaas dhulku wuxuu soo ceshanayaa dabiicadiisii. dhulka waxa uu soo ceshanayaa ecologigiisii dabiiciga ahaa ama qaabkii dabiiciga ahaa ee dhulku uu u shaqayn jiray. siyaabaha lagu yarayn karaayo dhibaatada abaaruhu ay geystaan way fara badan yihiin. waxaana loo baahan yahay in la sii qorsheeyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa si dhibaatooyinkaas loo yareeyo. marka qorshaha lagu yaraynayo dhibaatooyinka abaaraha way fara badan yihiin, waqti badan ayay qaataan. waxaana loo baahan yahay in la mideeyo dhammaan dadaalada ay samaynayso bulshadu oo laga wada qayb qaato. hadday ahaan lahayd dadka reer miyiga ah, dadka reer magaalka ah, siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, dadweynaha, haweenka, waxgaradka, dhammaan dadka oo dhan waxaa loo baahan yahay in ay dadaalkooda mideeyaan. arrinta kale ee muhiimka ah waxaa weeyaan arrinta ku saabsan nabadgelyada. nabadgelya haddaanay jirin nolol ma jirto. dadku waa inay isu yimaadaan, waa inay walaaloobaan, waa inay wada tashadaan, waa inay danahooda ka tashadaan, waa inay wada hadal joogto ah yeeshaan. sababtoo ah beelaha deriska ah ma kala maarmaan. maxaa ka dhexeeya? dhulkii, deegaankii, biyihii, baadkii, wada noolaanshihi baa ka dhexeeya. marka arrinta ugu muhiimsan waxaa weeyaan nabadgelyo. dadku waa inay heshiiyaan, waa inay sameeyaan isdhexgal, waa inay ogaadaan in bay'adda ay tahay arrin weyn oo ka weyn deegaanka, oo haddaan la isu kaashanin dadku waxay u dhammaan karaan oon iyo haraad. marka bay'adda
ودبعته علوس أو عن حدود لهين وحلو بهاي إن لا يسوق عشرة أو لم يذوب أو لقوا التشرب وحيابها تذكر حياة بيها هي بادك هي عوسك أي كم تكيهين وحلو بهاي إن لوذا وذاقو إن لوذا النور هذا إن قلبا كله أي أهم بيسو إن وحي خلاف ماذا وهذا هذا يجيت كهوستيسا لو حليو بيأدى ولا خربي كرا ماشى اللي قلنا لي هاي ولا خربي كرا نرتا ولا جري كرا لولكا سحن بقى ولا استعمال كرا طبعا إن النتيجة وحي نقونيسا إن dadka meesha ka agdhow oo dhan dhibaata ay soo gaadho haddii dhirta la jaro dhulku muxuu noqonayaa nabaad guuray oo marka dambana saxaaru dhulku noqonayaa haddaba si dhulka loo ilaashado dadku waa inay ka shaqeeyaan dantooda guud danta gaargaarka ee shakhsiga ah waa caadi qof walba uu ka shaqeysan karayaa laakiin qaybna waa inuu qof ka qaataa danta guud waxa dadka ka dhaxeeya oo dhan ilaalinta bay'ada nabadgelyada waxaa kaloo muhiim ah dadku si ay u wada noolaadaan in ay is-ixtiraamaan in xuquuqal insaanka iyo bini aadamnimada uu qof walba qofka kale ku leeyahay la ilaaliyo haddii sidaa la samayn waayo waxaa dhacaysa dadku inay isku dhacaan hadday dadku isku dhacaanna waxaa xumaanaysa nabadgelyadii hadday nabadgelyadii xumaatana waxaa meesha ka baxaya horumarkii hadduu horumarka meesha ka baxana meesha maxaa yaalla marka waxay noqonaysaa dhulkii marka in lagu kala qaxo oo dadkii ay u dhammaadaan mid abaari disho mid colaadi disho mid bay-aadi oo ka xumaatay shaqo heli waaya noloshii xumaata dhulkiioo gubta aakhritaankana waxay keenaysaa dadka inay qaxaan mooyee nolol kalaba inaysa haysanin waana sida ku dhacday dadka Soomaaliyeed oo markii dadkii ay tashan waayeen oo xal ay la iman waayeen ay noqotay dhalinyaradii dhulkii inay ka haajiraan oo ka qaxaan oo magafe iyo qax iyo kala carar uu ku dhaco oo dadka Soomaaliyeed ay aaminaan in aanay wadankoodii kuba noolaan karin haba yaraatee dhulka Soomaaliyeed waa dhul weyn waa dhul ballaaran waa dhul nooc walba leh dhulkaas wuxuu u baahan yahay qorshe in loo sameeyo dadkuna ay si nabadgelyo ah ugu wada noolaadaan haddii kale dhulka laguma noolaan karayo waxaa dhici jirtay berigii hore marka meel ay abaar ka dhacdo in caalamku uu soo gurmayo oo raashin iyo biyo iyo lacag la keeno oo caalamku uu soo gurmayo laakiin hadda dhibaatooyinka adduunka way sii badanayaan waxaa sii yaraanaya gurmadkii la siin jiray dadka baahan ee abaaruhu ay ku dhuftaan waxaa dhacaysa mararka qaarkood marka meel abaar ay ka dhacdo hay-adahu inay yidhaahdaan arrinta waan baaraynaa lacagaan dalbanaynaa waxyaabo noocaasa oo cagajiid ah haddaba dadkii maxaaba la soo gaariba waxaa laga yaabaa dadkii intii hay-adaha ay baaritaan iyo shirar iyo wixii intay ku jireen dadkii qaar badan inay dhintaan marka waxaa loo baahan yahay in aan lagu tashanin hay-adahaas iyo gurmadkaas iyo gacantaaga iyo baryada dadku inay isku tashadaan midda kale xilliyada abaaraha ay dhacaan dadka Soomaaliyeed waxay dhaqan ahaan u leeyihiin inay is-caawiyaan inay isu gurmadaan in ayagu ay gacan isa siiyaan hadda abaartii dhacday sanadii hore gacan weyn baa laga geystay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay u soo gurmadeen qurba joog iyo guda joog labadaba marka saasa loo baahan yahay marka meel abaar ay ka dhacdo waxaa loo baahan yahay in la isu gurmado laakiin dadka localka ah oo deegaanka ah baa la rabaa horta ugu horeyn in iyagu isu gurmadaan bal gurmadkan kale ee ka imanaya qurba joogta ama ka imanaya dawladda dhexe federaalka ama ka imanaya dawlad goboleedyada intay imanayaan gurmadyadaasi dadka deegaanka waxaa loo baahan yahay iyagaa iska warhaya iyagaa darista iyagaa walaalaa marka waxaa rabaa dadka deegaanku inay had iyo jeer inay yeeshaan ururo iyo dad u dooda xuquuqdooda iyo dad samafalayaal ah oo dadka dhexdiisa ka shaqeeya oo dadka yidhaahda isu hambeeya oo qofkii baahan og arrimaha noocaasa marka waxaa loo baahan yahay organizations ama ururo ama hay-ado dadku inay leeyihiin tuulo walba waa inay ka jiraan dad samafalayaala oo ururo u shaqeeya waa inay jiraan ururo fara badan oo samafalayaala oo maxalli ah oo dadku ay leeyihiin kuwaas baa la rabaa marka hore dadka inay maaragtay ay dadka ka dhaadhiciyaan oo dadka waaniyaan oo wax isu sheegaan No
شباب